wasaaraddan waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee qaranka waxaana keenaya fiilka ay ka shaqaynayso ayaa qaranka ugu fadhiya muhiimad weyn Soomaaliya oo ah dal barwaaqo ah laakiin dadkeedu faqri ah nasiib darro markii ay ka faa'iideysan waayeen khayraadka Ilaahay dhigay ayay wasaaraddani waxay hogaaminaysaa khayraadka Ilaahay dhigay dalka kuwa ugu muhiimsan khayraadkan leenahay waxaa ka mid ah xoolaha waxaa ka mid ah beeraha waxaa ka mid ah kalluumaysiga haddee dhulka ay wasaaraddani u xil saaran tahayna beriga aan leenahay buu 10 jeer kasoo laabma idaa u dhul weyn marka waddankan wuxuu marti uga yahay wasaaraddan inay soo saarto khayraadkaas inay ka faa'iideyso si uu waddankani uga baxo majaacada iyo baahida kusoo noqnoqotay sinis intii uuba waddan ahaa oo dhanba jirtayna qorshooyin fara badan oo aad u wanaagsan baa wasaaradda hor yaalla hadda ka hor waxaan idhi budgetka dowladda 50% wasaaraddana laga rabaa inay bixiso oy keento Soomaalida waxay dhahaan weel weyn baa Ilaahay lagu baryaa marka wasaaradda aan ka sugaynay inay 50% inay budgetka dowladda ayadu keento inay meel yar oo qolol yar yar oo tacbaana ku jirto sax ma marka waxaan rabnaa inaan wasaaradda u samayno guri iyo xafiisyo u qalma mas'uuliyadda laga sugayo intay leegtahay waxaan rajaynayaa markaa insha Allah 9 bilood kadib markaad xafiisyo aad u qurux badan iyo guri dheer oo waxa weeye qalabaysan waxa la wixii loo baahnaa u dhex yaalla markii la idin sameeyo waxaan filayaa inay bilaaban doonto insha Allah wayna dhowdahay in ay wax soo saarkii kalluumaysiga iyo ka faa'iideysigiisa iyo blue economy waagii hore waxaa la dhihi jiray kalluumaysiga iyo khayraadka badda ayaa la dhihi jiray laakiin hadda waad ogtihiin oo dee baddeenna waxa kale ku sii jira waad ogtihiin oo bilowdayba marka blue economy-gaas oo guud ahaan la isku xaabiyey ayaan rajaynayaa insha Allah in waqti dhow ay dalkan gaajada iyo baahida inay ka saarto horumar iyo Soomaalida aan rajaynayno Ilaahay idankiis 60 sano kadib inay aad u qurux badnaato oo visionkeediina la soo dhigay oo ama maqasheen ama arkayseen meeshay ka bilaabanaysa waay dhinaca kale waxaad ogtihiin dunida hadda waxaa ka jira waxa la yiraahdo the global warming iyo climate change oo dhibaato fara badan runtii dalkeena ku haya abaaro badan oo isku xigxigay dalkeena kaliya ma aha dunida oo dhan ku haya wax soo saarkii yaraaday xoolihii dhibaato ku haya iyo aad ogtihiin mushkilada ka jirta marka dalkan haddii uu markii hore aan dhinaca beriga u badnayn waxaan qorshaynaynaa in dalkani hadda kadib inuu isu bedelo maritime state dhinaca badda in la dego waxaan rajaynayaa in laamiyo waaweyn insha Allah inaan xeebaha dalka inaan marin doono haddii la yiraahdo laamiyo waaweyn oo si ay magaalooyin uga samaysmaan fara badan badda korkeeda si uga samaysmaan taas waxay keenaysaa in dadkeenu kalluumaysi ay u jeestaan iyo khayraadka badda hadda kadib inay u jeestaan inaynaan meeshii aan biyaha webiga iyo aan ictimaadi jirnay inaynu biyaha xatal ka samaysano badda inaan ka samaysano maadaama ayada Ilaahay buuxiyey oo aan abaar iyo mashaakil iyo midna aysan biyo la'aan ugu dhacayn inaan baddaas macaanaysano
oo aan biyaha ka cabno oo aan beero ku samaysano oo aynu ku noolaano oo aynu ku ganacsanno ayaynu insha Allah ka shaqeyn marka Soomaaliya mustaqbalka ii muuqda ee Soomaaliya dhinaca baddu inaga jira qorrax soo bax ayuu inaga jira wasaaraddan ana hogaaminaysa hawsha marka hawsha idiin taallay waa hawl weyn wasiir ma yara hawl aad u weyn qarankan kaalinta koowaad aad kaga jirtaan hawshaas NTP-ga iyo maxaan ku dhahaa aan samaynay iyo qorshaha 5 sano ee ugu soo horeysa waxyaabaha ugu badan ee la sugayo inay wax laga qabto waa wasaaraddan gacanta ku haysa marka waxaan rajaynayaa inaad ilaahay idinkiis maanta waa tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinacii aan ka hadlaynay iyo horumarka iyo wasaaraddani kaalinta ugu fadhida qaranka waxaana tarjumaya tallaabada aad maanta la qaaday ee tarjumaya insha Allah guul baan idin rajaynayaa waxaan leeyahay hambaliyo mar kale